waa digtoorkii halista badnaa ee bukaanada dili jiray ee aanay cidna ka shaki jirin, balse ugu dambeyn siduu isku dilay. Ninkan digtoorka ah waxaa lagu magacaabaa Harold Shipman, sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa digtoorkii dilaaga ahaa. Ninkan ayaa ka soo jeeda London. Waxaa la rumaysan yahay in ninkan digtoorka ah uu dilay dad lagu qiyaasay 250 bukaan ah intii u dhaxaysay sanadkii 1972 ilaa 1998. Waxa uuna ka shaqeeyay 2 xafiis oo kala duwan, balse intuu dilka geysanayay cidi kama shakin oo waxa la islahaa digtoorkan waa mid wanaagsan. Iyadoo kiisaska intooda badani ay ahaayeen haweenka aad ayaa loola yaabay markii la arkay digtoorkan oo gacantiisa bukaano badani ay ku dhimanayaan, balse wax shaki ah lagama qabin. Isaguna hawshiisa ayuu iska sii watay oo bukaanada ayuu dili jiray, balse ugu dambeyn ninkii digtoorka ahaa waxa ka shakiday gabadh, waxayna wargelisay booliska, waxaana la xidhay ninkii digtoorka ahaa sanadku markuu ahaa 2000. Ugu dambeynna xabsiga dhexdiisa ayuu isku dilay oo nafta ayuu isdhaafiyay sanadku markuu ahaa 2004. Asxaabteeda qaaliga, muuqaalkeeni maanta intaa ayuu inagu joogaa. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.